arrinta halkan runtii ka dhacday ma aha arrin caadiya ma waa arrin mucjiso ah weeyi maalmihii ugu dambeeyay duleedka magaalada Gabiley waxa ka socda dhismaha biriishka weyn ee isku xidhaya magaalada Gabiley iyo Buurta Shariif Cali iyadoo boqolaal dhalinyaro ay ka heleen shaqo abuur baaxad leh waxaana gacanta ku haysta dhismaha biriishkan shirkadda Xaaji Muuse Construction Company oo kamid ah shirkadaha ugu tayada fiican xagga dhismaha biriishkan oo kamid ah mashaariicaha ugu waaweyn ee ka taabagalay gobolka Gabiley waxa muddadii u socday shaqo abuur ka helay 400 qof oo ay maamuleysay Suruur Yuusuf Sheekh oo ah gabadha injineerka ah ee qaabaynaysa habsamay socodka biriishkan taasoo shirkadda Xaaji Muuse ay u xil saartay telefishinka sahan oo boqday biriishkan oo ka socday shubkii ugu dambeeyay waxa muuqanaya isku dubaridka shaqada biriishkan oo laga dheehanay inuu kaalin miisaan ka qaadan doono kobaca magaalada Gabiley iyo bulshada ay ku dhiirato in la deegaamiyo Buurta Shariif Cali oo xilliyada roobaadka ay arqalad ku haysay in bulshadu ay dooxan iskaga talawdo maayarka magaalada Gabiley iyo xildhibaano ka socday golaha deegaanka ayaa iyana kormeer ku sameeyay hanaanka loo shubayo sabadii ugu dambeysay ee lagu dhameystirayo biriishkan oo muddo badan la naawilayay in laga yaqleeyo goobtan ugu horeyntii madaxa shirkadda Xaaji Muuse Construction Company ee dhisaysa biriishkan Kaysa Xaaji Muuse Cilmi iyo injineerada gacanta ku haysta Suruur Yuusuf Sheekh Maxamed Warsame ayaa sheegay in lagu guuleystay qorshaha dhameystirka biriishkan iyagoo dhinaca kalena hoosta ka xariiqeen shaqo abuur baaxad ay ka faa'iideen bulshada deegaanku waxaan joognaa maanta biriishkii Shariif Cali loo dhisay biriishkaas oo biriish weyn oo casri ah oo sida casriga ah u naqshadaysan si qiimo leh u socdo shaqadiisa si fiican darabada u socoto waxaan leeyahay waa guul weyn oo u soo hoyatay guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan injineerka biriishka dhisaya oo ah injineerkii ugu horeeyay oo gabadha oo Soomaaliland biriish ka hirgeliya waxa ilaahay loogu mahadnaqayaan waa dadkii wadankan u dhashay ee qurbaha wax ku soo bartay oo maanta cilmigooda iyo aqligooda iyo awoodooda uu ku soo celiyay dalkooda hooyo waxna ugu qabtay waxaan aad halkan mahad uga jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay tahay qorshayaashiisii horumarineed oo biriishkani kow ka yahay waxaan u mahadnaqayaa xildhibaanada golaha deegaanka maayarka wasaaradda hawlaha guud dhammaanba waxaan leeyahay ciddii biriishka ku lahayd fikir iyo talo waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka idinku daro dadkii reer Shariif Cali ee dhibaatadu haysayna ilaahay idinka furanayaa si dhib yar baa loo talaabayaa si dhib yar baa looga soo adeeganayaa magaalada maanta halkaan joogay miska jaamaci waxa isku jiraan laba talaabo awalna waxaan la gaari karin baahed aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaantiin ilaahay baa mahad iska leh waxa halkan shaqo abuur ka helay maalin kasta oo ay shaqo ka socoto waxa loo qaybiyay maadaama biriishku ku qorshaysnaa inuu sanad ku dhamaado shaqooyinkii waa la badiyo shiftiyada la badiyay habeen iyo maalin baa la shaqeynay waa la isbedelay dadka shaqo abuur ka helay waa dad ilaa 400 qof shubkii ugu dambeeyay biriishkii Shariif Cali ee Gabiley ilaa Shariif Cali isku xirayay oo maanta shubkii ugu dambeeyay sida Kaysa Xaaji Muuse sheegay maanta inaga dhan tahay marka sida uu Kaysa sheegay biriishkan 12 bilood ilaa sanad gudihiidu ahaa qorshihiisu fadlilah waxaan ku dhamaynay 4 bilood taana fadliga Ilaahay dabadii waxa iska leh sida loo wada shaqeeyay maamulka oo xoog ugu hambaleynayo shirkadda Xaaji Muuse Construction oo runtii shirkad mashruuc kastaada waxa kaliya ku horgala ama uu ku noqdaa success waxa weeyaan dadku soo wada shaqeeyaan iyo teamku wuxuu yahay marka teamka halkan qof kasta oo mashruuca ka shaqeeya anigu la kulmay waa qof raba inuu wax taro oo la ismaqlayo la ixtiraamayo qof kastaada shaqadiisa wuxuu qabanayana isagoo cidna dirin istiraya oo gacan kaliya la wada yahay marka maanta ilaahay dabadii waxa fadlida ku leh managementka iyo systemka iyo dadka ka shaqeeyay oo anigoo Suruur ahaan oo mashruucii biriishkii ugu horeeyay aan dalkayga ka dhiso Soomaaliland ama Gabiley ugu horeeyay waxaan xoog lagu faano aan ku hambalyeeyay qof kasta oo ka shaqeeyay maayarka degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa ugu dambeyntii sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda reer Gabiley uu leeyahay biriishkan oo ay xukuumadda dhexe ka taabagelinayso gobolka Gabiley arrinta halkan runtii ka dhacday ma aha arrin caadiya ma waa arrin mucjiso ah weeyi biriishka intaa leeg weynida iyo baaxadda leh in muddo 105 cisho lagu dhameeyo waa arrin runtii mucjiso leh weeyi oo ay ka muuqato wadaniyad iyo daacadnimo iyo xilkasnimo dheeriya aad baan ugu mahad celinaynaa runtii shirkadda mashruucan gacanta ku haysay Xaaji Muuse iyo injineer Suruur oo injineerkii biriishka ahaa oo markii ugu horeysay ee Soomaaliland ay biriish inta leeg waxa weeye gabadh injineeradii ay wado iyadoo tacabkeedina aan arkano
mashruucan waxyaalo badan oo kaga duwan yahay baa jira mashaariicaha kale oo doorta baaxad ahaan iyo nidaam ahaanba wuxuu u dhisaangaraysan yahay heer biriish caalamiya magaalada Gabiley saa ka warqabtaan hareeraha dooxya ka mara fiditaanka mustaqbalka ee magaaladana lagama maarmayo inay biriisha yeelato sidaa daraaddeed golaha deegaanku qorshaha uu u dejiyey fiditaanka magaalada ee ugu yaraan 2050 oo 30 sano kadib magaalada sidee halkay ku fidaysaa sidee u fidaysaa maxaa ku hortaagan in magaaladu fido mashaariicahan oo kala runtii ka jawaabay waxyaalaha qorsheynay ka mid ahay si magaalada urban expansion plan baan runtii aan u sameynay koobu ka ahaa mashruucan oo si gaar ah uga codsanay wasaaradda howlaha guud oo uga mahad celinayno runtiina codsiga naga aqbashay oo iyadu maal gelinaysa mashruucan qiimaha leh maanta way idinka arkayo damiskii jaamicii xaraga lagu tagay halkana dhibaatooyinka ka dhici jiray waynu garaanaa runtii marka waxay Soomaalidu tiraahdaa wixii ragu kaco rabbina aqbalaa way rumoobaan shirkadaha dhismahana tusaale wanaagsan bay u tahay inta iyaga oo lacag la siin marka agreement-ka la galo inay wax weey iyagu waajibkooda gutaan oo ay yiraahdaan lacagtu ha dambayso horta shaqadayda sida quality leh oo dhaqso badan uga soo baxo waan idinku hambalyeynaa runtii mar labaad iyo mar saddexaadba gabagabada bridge-kan ayay noqonaysaa shubkii saddexaad ee lagu soo gabagabinayo sameynta dhismaha bridge-kan weyn ee isku xidhaya magaalada Gabiley iyo daantaasi Shariif Cali waa Jaafar Cawl Herari telefishinka Sahan magaalada Gabiley